alxamdulilah rabbil caalamiin waxaa maanta oo ah 22 Sebtembar maalin 2021 maalin salaasa ah noo soo dhameystirmay oo noona suurta gashay aniga iyo gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdulaahi in aanu soo xulno liiskii 11 tartamayaasha 11 kursi ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalka sare u metelaya gobolada waqooyi ee Somaliland liiskaanu soo gudbinay uu naro hubiyay waajibaadkii ka saarnaa uu ka gutay waxa uu maanta diyaar u yahay in aanu shaacino una soo bandhigno bulshooyinka Soomaaliyeed murashaxiinta kuraasta u tartamaysaana ay ogaadaan waxaanu marnay wado dheer oo aanu ku kala xuleynay tartamayaal fara badan anagoo shuruudihii dastuuriga ahaa iyo kuwii habraacyada ku qornaaba la eegnay kuna hubinay kuna jeegaraynay waxa kaloo iyadana noo gabagaba ahoo aan soo gabagabaynay ergadii 23 oday dhaqameed iyo 23 ergey oo noqonaya baarlamaanka Somaliland ee dooran doona murashaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi ee Somaliland waxaan u hambalyeeynaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble doorka shariifka ah ee runtii iyo isxilqaamida iyo mas'uuliyadda uu ka qaatay in ay hore u socoto doorashada xildhibaanada labada aqal ee Somaliland oo maanta aynu halkan ku shaacinayno musharaxiinta aqalka sare ee rasaaruhuna nala hubiyay noo baarigay noogu duceeyay mar walba ra'iisul wasaare taageeradaada waa u baahanahay iyo garab istaagaaga waanad ku mahadsantahay runtii mar walba sida aad noola barbar taagan tahay in shaqadaasi ay hore u dhaqaaqdo intaasan ku soo gabagabeynaya odaytinimada gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdulaahina waan hambalyeynaya iyo dulqaadka uu muujiyay waxa kaloo uu hambalyeynaya doorka runtii gudoomiyaha maxkamadda sare uu geedi socodkan oo dhan uu ka qaatay